السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نحن قادرين عشرين امتحان 10 كمية مادة فيزيكس كلاس فورم 1 10 كينا لبعض يعني قادم دونا chapter 1 10 كيس لبعض يعني قادم دونا 10 كينا نروح أوصل هذا introduction to physics فهيتان دي سوى وياها إيو وحياة الحريرة حدو حنك بلعب دونا branch of physics لامها وقيب سمو physics كلاس فورم 1 physics lesson كيس لبعض chapter 1 10 كيس لبعض كجرنا branch of physics لامها وقيب سمو physics physics markii laga hadlayo guud ahaan inta badan waxa loo qaybiyaa laba ayaa loo qaybiyaa brancheskiisa waa classical physics iyo modern physics yalla classical physics waxa la lahaa physicskii hore socon jiray 1900 wixii ka sii horeeyay la isticmaali jiray iyo modern physics oo soo baxay xilligan 1900 wixii ka soo dambeeyay 2000 agaarahan agdhow soo baxay qarniga 20aad wixii ka dambeeyay soo baxay modern physics waxa la lahaa midkan dambe la yiraahdo waa 2000 hadda aan update-ka aan anaga isticmaalno ayaa la modern physics marka waxa la physics ka hore iyo physics ka dambe ee casriga okay classical physics physics up to physics ila laga soo gaaro 100 and 1900 ila 1900 laga soo gaaro AD oo laga soo gaaro after David laga soo bilaabo xilliga hore ila laga soo gaaro 1900 oo ah after David oo taariikhda ay dadku yaqaanaan taariikhdan ay yiraahdaan dadku miilaadiyada ay yiraahdaan wixii ka horeeyay waxa la isticmaali jiray physics-ka classical ka dhahay isticmaali jiray concerned as waxa aad xoog loo saari jiray xilligaas markii la joogay wixii ka sii horeeyay classical physics-ki hore it's mainly divisions wuxuuna lahaa qaybo u qaybsamo ayaa jiray wuxuuna u qaybsamaa physics-ka hore ee xoog la saari jiray wuxuu u qaybsan jiray labadaas waxay kala haayeen mechanics physics-ka farsamooyinka gacanta la xiriira mechanics waxa la physics-ooyinka la xiriira waxyaabaha gacanta laga qabto shaqooyinka gacanta laga qabto branch of physics wuxuuna kamid ahaa mechanics waaye is a branch of physics wuxuu kamid ahaa qayb kamid ah laamaha physics waa deal with wuxuu la xiriiray motion waa dhaqaaqa and force iyo xooga and force produce xooga la soo saaray motion dhaqaaqa inta badan wuxuu ka hadlay branch of physics iyo ahaa mechanics markii laga hadlayo qayb kamid ah physics iyo ahaa oo classical ku ka samid ahaa deals wuxuuna si gaar ah u la xiriiri jiray ama wax ka sheegi jiray motion dhaqaaqa iyo force xooga produce soo saaro motion dhaqaaqa soo saaro xooga soo saaro wax shay loo dhaqaaqa nooca labaad ee hore wuxuu ahaa optics ee la jiray wuxuu ka hadli jiray iftiinka ama ilayska ayuu ka sheekeyn jiray qayb kamid ah inta badan ayuu ka hadli jiray is a branch of physics waa qayb kamid ah physics ayuu kamid yahay deals wuxuu la xiriiraa light iftiinka ayuu la xiriiraa and production iyo qaabka loo soo saaro light ka ama iftiinka ay qaabka loo soo saaray ayuu ka hadli jiray modelkii hore waay modelka hadda dambe ee modern physics markii laga hadlayo kan wuxuu yahay markaas guud ahaan waxa waa physics kan dambe waay waa this is the 20th century hadda waxaan ku jirnaa qarniga 20aad waan soo dhaafnaa hadda waa 21st century aan ku jirnaa qarniga 21aad aan ku jirnaa laga soo bilaabo marka qarniga 20aad wixii ka soo horeeyay physics minus subdivision wala si badiyo si weyn loo sii kala qaybiyay markii la soo gaaray qarniga 20aad wixii ka soo dambeeyay physics aad loo kala qaybiyay include waxa lagu soo daray oo soo kordhay oo ziyaado ku noqday intii hore loo yaqaanay waxa la yiraahdo modern physics oo asna ka kooban laba qaybood oo kala ah waa solid state physics ka hadla marxaladda adkaha physics ka hadla marxaladda adkaha ayaa ku soo kordhay is a branch waana qayb kamid ah physics land ama qayb kamid ah physics which ka soo deal with wuxuu la xiriiraa the structure hab dhismeedka and properties astaanta of solid material ay leeyihiin shayaalka adkaha qaybta labaad ee soo kordhay waxa la dhahaa atomic physics la xiriira atomka waa taqaanaa waa qaybta ugu yar ee ku jirta elementka oo ka qayb gasha falgal laba shay inay isku darsamaan ama isku dhigaan chemistry ku qaadatay ama ku qaadan doonta hadii aad hor u qaadan atomic physics ka khusay atomka is a branch of physics waa qayb kamid ah physics ka waaye وديلت wuxuu la xiriiraa structure hab dhismeedka and the property astaanta uu leeyahay of atomka waaya aan wuxuu kala hadli doonaa radiation sida isugu darsamaan si isugu kahfalaan kahfaladu waxa la sameeyay laba shay isugu darsamaan ku hadli doonaa intaas waxaan uga baxnay markii lagu weydiiyay physics-ka markii hadda la joogo cilmigan hadda aan maray physics qaybta umar laba qayb ayuu yahay qayb hore iyo qayb dambe ay laftooda subdivision kooda laba qayb si kala noqday hore aan sii soconaynaa waxaan qaadanaynaa hadda relationship xiriirka between u dhaxeeya physics and all subjects waxaan ka hadlaynaa xiriirka u dhaxeeya physics iyo maadooyinka cilmiga ayaan ka hadlaynaa
كو waxaan ku hormarinaa physics and mathematics xiriirka ka dhaxeeya physics iyo mathematics ayaan ka bilaabay number 1 physics is related wuxuu la xiriiraa strongly si xoogan wuxuu xiriir u leeyahay with mathematics iyo xiriir leeyahay xisaabaadka iyo xiriir leeyahay mainly inta ugu badan ama many physical concepts in badan physicska qaacidooyinkiisa ee fikir ahaan marka loo fiiriyo and formula iyo qaacidooyinka la waaye ama nadariyaadka ama fikradaha guud ahaanba are expressed waxa lagu sheegaa mathematics inta badan physics xeerarkiisa waxa lagu sheegaa inuu yahay xeerar marka la isticmaalayo ama qaacidooyinka inuu yahay xisaab lagu sheegaa formula soo kale waxa meesha ugu qorna kale a ek equal 1 over mv square ku qoro oo laga wado kinetic energy keeda waxay u taagan tahay kinetic id waxay u taagan tahay energy u taagan tahay oo laga wado tamarta dhaqaaqa waxay la mid tahay 1 over 2 waa hal hoos labo mv waxa laga wadaa mass waxay dhigata mass oo ku dhaxsan velocity oo laba jibar mv square saas lagu soo gaabay applies waxa la adeegsanaa markii xeerkaas oo kale aan ka hadlayno the use of algebra adeegsiga applies waxa la adeegsanaa marka the use adeegsiga of algebra of finding markii la ogaanayo unknown waxyaabaha maqan sida wixii lagu diray hadii uu maqan yahay kale kinetic energy qaabka lagu helayo kale marka fiiriso unknown which also is purely mathematical taasoo si nadiif ah xisaab ahaan waa xisaab barnaamijka marka fiiriso mathematical skills xirfadaha mathematical ama xisaabaadka quseeya are therefore very important waxay muhiim u tahay in learning physics marka physics baranayso ama daraasad ka sameynayso in xisaab ka taqaan aad u fiican qodobka labaad aan ka hadlayno waa physics and biology physics iyo biology xiriirka ay leeyihiin physics iyo cilmiga biology maxaa xiriir ka dhaxeeya knowledge of lenses barashada marka laga hadlayo bikacooyinka ama weynaysada oo kale marka laga hadlayo in physicska ama aqoonta ama garashada laga soo helo lenseska ee physics lagu barta are used waxaa loo adeegsadaa in making in lagu sameeyo microscope in lagu sameeyo oo ah qalabka shaybarada isticmaalaan which are used kaasoo loo isticmaalo in studying in lagu daraaseeyo ama wax laga baaro of the cell biology unuga nool ee biology ahaan loo daraaseeyo physical formula waxyaabaha muuqda ama formulooyinka muuqda ee physicska are used waxaa loo isticmaalaa in calculation in lagu xisaabiyo waxaa lagu xisaabiyaa marka or magnification weynaysada in la xisaabiyo by hair or leader magnification waxaana adeegsada by microscopes dadka isticmaala microscope-ka oo microscope marka aad arkayso shayga marka uu ku tuso 1 centimeter wax ka yar ama quraarada yar xog soo xiriira micrometer wax leeyahay andoo macro centimeter wax leeyahay ku tusaya waxyaabas aad ku soo macro iyo isticmaal inta badan marka waxaas ku tuso qaabka lagu fahmayo xisaabaad la isticmaala si xogta sax loo qoro the knowledge of labors aqoonta ku sheegaysa dhaqdhaqaaq aqoonta ka hadlaysa dhaqdhaqaaqa to explain help taas oo caawinaysa to explain in la sharaxo locomotion dhaqaaqa oo loo adeegsado dhaqdhaqaaqa in biology markii joogno waxa lagu bartaa sidoo kale physics lagu bartaa qodobka saddexaad waa physics and chemistry xiriir ka dhaxeeya physics iyo chemistry ka hadlayna physics has helped physicska wuxuu caawinaad u noqday in explaining in la sharaxo forces xoog in la sharaxo mid aan atom ku jira atomka dhexdiisa ku jiro and therefore daradeed sidoo kale wuxuu ka sii hadlaa atomic structure iyo habdhiska ay atomka ka hadlaan it is the structure wuxuu kaloo ka hadlaa sidoo kale habdhismeedka of the atomka that mind determine taasoo si weyn ay u go'aansadaan ama ay go'aan uga qaataan ama go'aan uga gaaro the reactivity dib u falgalka of the atomka as explained waxaas oo inta badan sharxaadiisa ama aad loogu sharxo in chemistry waxaas oo dhan waxaa saameyn ku leh physics and geography physics iyo cilmiga geography establishment as astanka of the weather pattern markii laga hadlayo asaaska weather pattern baaritaanka markii la sameynayo cimilo gooreed ama cimilo meelad markii la baarayo relay on waxay ku xiran tahay accuracy saxitaan oo lagu sameynayo instrument qalab sax in la helo ay ku xiran tahay like sida thermometer waxa la rabaa in la helo thermometer in la helo qalab lagu cabiro kuleelka ee thermometer laha waxa kale loo baahan wind vane dabal sheeg in la ogaado waxa kale loo baahan wax la yiraahdo in la helo waxa kale la yiraahdo hydrometer wax la yiraahdo in la ogaado